marka xamar nimid anigu anoo yar oo wilitiin ay jah nin familka iyo xaalado si qorshaysan adigu aan isguursan ninkii marka goorma xamar timaadday xamar waxay amaanay labada waxay ahayd amalna xilliga amaanay 97 98 meelaas labadii kun waa la iga waday oo ninaan ka guursaday waxaa ninka guursaday hiiraan muxuu ahay bulibardo guurkaas anigu guur ma dhihi karo marka adigu 14 jir 15 jir aad meelahaas waa yaraa ma aanan qaangaar fulah maan ahayn reerkaaga kaasoo doontay waa guursaday reerkiya waa la heshiiyey walaashay iga weynaa joogtay oo iyadana meesha marka hore ugu qaban jiray heshiiskaasaa dhex mara hoosooseeda aduu waa qabo qoorta geli sidii aan ku guursaday marka laakiin walaashay iga weynaa aad arrintaas hawlaheeda iyo awoodeeda iyo waxeeda dhan dhamaystay see ku yimid guurkaas taar aa lagu hadli jiray oo wada hadalku taar u ahaa marka way adkaydba in qof kale la xiriiro xataa hooyo iyo waalihii waxda lagu xiriiro wiilashii la dhashay inay ogaaneen kale xataa 100% sure ma ahayn laakiin walaashay waxay tiri hooyo iyo aabi hooyadii waa la hadli waay walaalaha wiilashii waa okay yihiin asaga cidiis waxay dhinac cidaada annaka la hadalnay saasa wixii lagu dhameeyey see ku yimid guurkaas marka see isku hesheen ninka waxaan isku helnay walaashay aan la joogi jirin oo u tagay oo meesha qabay walaashay waxay deganeed buulbardo marka ayadaa iga soo horeysay meesha iyadana waayaheeda hore meesha ninka ku guursatay ilmeyna ku dhashay marka sidii walaa hadda xataa xusuusteed maalinkii meherkiisa u dhac ma xusuusto meherka markuu dhacay iyo qaab uu ama xusuusto waxaan xusuustaa le inaan guri cariisha aan la soo dejiyey oo aan guri cariisha ku noolaayo bulibarta ku noolaa familkiisa oo odagayga familkiisa ay meesha laga deganaayeen oo dumaashigay iyo dumaashidii iyo dohday iyo sodogay hadda gabadhayda igu geed allah naxariisto uu dhintay marka saas aan guri kusoo galay gurigaas in badan aroos fiican lagu dhigay maya waxba lama dhigin aroosna ma la ii dhigin maba aragin xataa ma xusuusto xataa dhar cusub iyo wax ma la ii gelin gurigaas la soo galay meesha la igu guursaday ninaan ku qaban wala bas meeshiyaan iska joogay ayaan noloshaas marka nolol gurigaan ku agbisay ahayd guri gudiis bas see lagu galbiyey marka guriga see lagu gey walaashay ilmeheed hay gurigaan ku dheganaan ku hayay marka oo cidoo cid islahay ahayn marka gurigaan ku dhegan maadaama aan lahaa oo walaashayna wixii dhan iga dhaadhicisay tiri ninkaan lagu guursaday familkii waa kana ay hooyana waa lala hadlay adeer ciddii wiilkan dhahdeen waa lagu bixiyo ninaa ciddii annagaa dhammayna adeer gabadhayna yaa tahay meherkiina waa dhac maanta u dhacay sidii marka gurigaan lagu soo marka lagu guurinaya marka bulibarta joogtaa walaashaa la nooshaa walaashaa la noolaa meeshaa marka la keenay gurigii aan soo galay baatigii aan guriga kusoo galaan ku joogo ninka ku guursanaya hore ma isku taqiineen wax badan maya laakiin waa arki jiray waa heshiiseen maya aniga isaga hadal wada hadal lama dhex marin asla iskaa soo doonta marka walaashaa kula gaclootay walaashay soo gaclootay asaga walaashay soo heshiiyey ayagu asaga walaashay iyo familka kor aan ka soo heshiiyey marka aniga hooyaday aan horta ma joogtin meesha oo iima sheegi karto wixii meesha ka dhacay laakiin in wax la soo dhameeyay tahay oo familkii wixii isku geeyeen u ahaa kadibna marka hooyo la hadlay waxay timaanday waa lagu guursaday hadda waa ninkaas ku qabo waxaas kiisata sidii marka meesha ku joogay ninka marka xiday ahaayeen walaashay xid ahaayeen dumaashigeedu ahaa guriga lagu geeyey isaas lagu geeyey albaabkaas qabal liisi ilaa hadda ayaan law familkaygu ama walaalahayga ama ehelkaygu ma oga noloshaas wixii meeshaas ka soo maxaa dhacay gabar hooyadeed horta kibir kusoo korsan ahayo yaraan ku xigeen oo la koolkoolinayo aan aabbana arag adeerna arag abtina arag laakiin hooyo ay soo korsataa ah gabar hooyo ah walaashayaan raacay oo halkaas i geysay ma aanan bixi lahayn oo aniga choicekayga ma ahayn inaan halkaas aado ninkaas la ii guriyey oo ama isguursanay oo gurigiisa u joogay nin Soomaali ama dhaqankeeda leh ama diinteeda leh ama naxariista nimanka Soomaaliyeed leh ma ahayn maxaa ku tiri waxaan ku iri anigu reer gobol horta iska ahaa oo dadku markay reer magaalo yihiin oo magaalo joogaan dabcan Muqdisho joogaan oo asxaabka la sheekaystaan oo friend yeeshaan oo saaxiib yeeshaan wax badan ogaadaan ana wax badan ma aan ogeyn nolosha naxwo kama aan ogeyn guurka micnihiisana ma aan ogeyn
iyo waxa guurku yahay waa iska naxariis badnaa oo walaalahayaan ilmaha la kori jiray walaalahayaan aan waxaan u ahaa gabar yar oo jecel yihiin marka gurigaasaan ku xirnaa jiray banaan ma aadi jirin albaabkaan bixi jirin qof ma la sheekaysan jirin saaxiibna maana lahayn wuxuu u samayn jiray marka asaga weygiisa ama jidkiisa waxaan ahayn jidaan ahayn waxba kuma fuli jiro maxaa ka wadaa waxaan ka wadaa banaanka ma aadi karo adeeg banaanka uma doonan karo wadaadu ahaa miya wadaadu ahaa wadaadna ma ahayno wadaadada anigu waxaan u aqoon jiray dadka mujaahidka iyo quraamada aqriya iyo oo muxuu ahay wadaad dugsiga macalinka yaa dhihi jiray asaga dugsi macalinna ma ahayn farmashiyistu ahaa jiray farmashiyo ay lahaa jirin familka farmashiyaashu ka shaqay jiray marka ma diidaa in adeeg doonatid oo gurigaaga aad maamulato waa fahmi waaye horta qabiil ahaan waa lagu xagli jiray waxaa la dhihi jiray naagtan habar gidir waaye deegaanka marka ayagu maysan ayagu waxay ahaayeen gaal jecel waaye bulubardana waxaa u badan xawaadla u badnaa markaas dadka marka xawaadlaha oo meesha degan ma aanan dad badan kama aqoon walaashay ilma taanay ahayn gurigan ilmaha ugu dhexeey jiray oo ilmahaas yarka ahayn jiray xambaarsanaan jiray banaanka dadka jira maan aqoon marka qofna maan aqoon laakiin waxaan ogaa anigu inaan horta cadaada ka imid oo cadaada ka imid qabiil ahaana sale baan ahay laakiin hawiyaha iyo muxuu ahay iyo habar gidirtaas iyo ma aanan fahansanin xoog iyo xawaadlahan hadda aan mid iyo gaal jecelkani waxay fahan weyn kamaan haysan aan iska tiinayna waa ahay cadaadihii laga soo wadan xamra laga geeyay xamra markii waa laga celshay bulbardaan jooga marka noloshaydii oon soo maro horena ma fiicnayn oo dagaal iyo dil iyo waxaan ku soo maray dhiig tan hadda aan imidna oo aan ku qaadan lahaa dhalinyarnimadeeda ma aan helno guur iyo xanimaadaan ku helo marka gurigaas isagu wuxuu igu hayn jiray ilaa hadda ma ogi laakiin dabcan albaabka inaan ka baxo muuse iyo ogolayn familka dadka degan meesha way caan jireen walaashay ilmaheedu ay ga wadatay ani bisa meesha ku haray dadku marka way caan jireen qabiil habla naag habar gidirsan lagu cajir waxa diris marka habar gidirtan balaayo iyad maxay taa maanta kaliya lagu xagna dadka waa meesha laga jeclay ha maxaa kaliya walaashaas uma degan magaalada waa guurto walaashay xamre soo ilmaheedu soo wadatay marka adaa ku haray ana kaliya ku haray hatta inaan raac waa rabay diiday guriga dhaqay ku ma bixi kartid ugu tir reerkaaga eragaas ay u tir guriga dhaqay u tir waay marka gurigaad ku xiran tahay meel ma baxay halkaas ku jira bal iga sheekay guriga say kugu xiran ma albaabka lagu xiraa guriga albaabka xiran furaha asaga qaadanaya qolka hurdada masay albaabka qol waaye iyo barsid meel dhexe ah marka asaga barsid kor ka xiraa guriguna cariish waaye guryaha oo la mariyo geedaha inta la dhiso shamiitada ma ahayn waxaa la mari jiray miyaa ma aqaan xarka xoolaha miyaa waa cariish waa la yaqaanaa cariish miyaa bas anuu jingada ma naqaan cariishka ma hiiraan laga waa jingad waa meeshii ilaahay amarkaas ku jira daaqad bis shabaq oo leeyahay sariir iyo chief no ii dhigay fadhi no guriga yaala oo barantadas fadhiga yaala chiefkan inta yaala marka chiefkaas fadhigaas u dhaxeeya alakaas uu xiran yahay lugtana waxa iga xiran ma waa horta inta lugta laga xiran waxaan dhihi jiray waaya muxuu ahay gurigan ugu jira wuu idili jiray marka haddaanba afkayga hadalba ka soo baxo wax hadal nuucba ah oo la tumi jiray marka waxaan dhihi jiray alashaan maxay macnaha ku soo korinaya waxaan dhihi jiray waa ii dilay soo wuxuu dhihi jiray dhaqankeena anaga saas waaye oo ah alashaan naag in la dilo maahan wax kale dhaqankeena ma marka waxaan dhihi jiray naag ma gabar ahayn marka naagtan waxaan umaleeyaa naag ilmo dhasho hooyo in la dilo maxaa ka wadaa marka markaan dhaho maxay adoo waxba halayna la ha hadal afkayga ma ku soo bixi karo banaanka ma u bixi kara ma dhihi karo adeeg noocaas ah ma dhihi karo isaga adeeg isu gadaa cuntada marka familka la isku darnaa la isku karnaa alaka la soo dhigaatay wax waa la camal marka ma la murmi jiro ku qaqay jiro marka waxaan dhihi jiray maxaa saa igala markaas marka wuxuu ii sameeyay inuu xarig lagu tagay xiro hooyis hatta ilaa hadda way noo shamaysa ogeyn familkiisa maysa ogeyn markaas la qof weyn soo xarig kugu xiraa laakiin xarig waa iska furi kartaa maya waxa silik katiinad ha oo qoful leh katiinad qoful lagu tagay xiraa marka muxuu kugu xiraa sariirta darbiga wuxuu igula xiraa sariirta lugteeda hoose waa ka furi kartaa sooma hadda sariirta waa qunfil ku dhigan waay waa labada qunfil ku dhigan sariirta hadda ku qaado laakiin katiinada soo baxaysaa may waa sariir culus ay ahayn oo albaaxa marka moogi ma inaan min daaqligaas aan leen kor qaado laakiin sariirta wax ilaa kad ma culus ma jiidin karin markaan jiid ima raacayso marka lugtaas meeshaas aan ku xirnahay gurigaas joogo markuu waa suuro marka geeyla